السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش channel سو دواده ولكن فاتوش channel كداوينسين waa فاتوش channel markasta waxaan jeclaa qisooyinka iyo waxyaabaha dhacdooyinka dhacayna in la wadaago labadan qisa maanta in la wadaago kar laba dhanba isku soo qabtay ma ayaantan America aad ayay u kacsan tahay shuurinka aad ayuu u fara badan yahay waa sheeko aad iyo aad ula yaabi doontid فاتوش فاميلي waxay kugu soo kordhisay dukaankeeda online ka alaabaha sharaxaada laabtana arkaysi laba ay loo isticmaalo sharaxaad iyo tishba labadaba waa loo isticmaal miisas qurux badan oo abdayda sidoo kale go'yaal aad u qurux badan waxa sidoo kale aan keenay daahiye aad iyo aad oo la dhici doontid oo kala rag kala duwan leh hadii aad daneynaysid daahiyada ana alaabta sharaxaada alaabta miiska sariiraha fadlan nala soo xiriir taleefanka shaashada ku qoran shipping waan sameeyaa 50 state ka United States hadii la heedmo waxa dhacday maalin dhowda ta inay soo gudbiyo taxis shaqada ka dhacday oo ninkii dadka laay mid kale ka sii wahalan baa dhacday laba waay midda koowaad waxay ka dhacday Oklahoma ay ka dhacday nin ayaa wuxuu baxay wuxuu aaday dhakhtar okay dhakhtarkii markuu aaday qalliin baa lagu sameeyay qalliinkii markii lagu sameeyay waxa dhacday qof kasta markuu qalliin galo waa arkaysa xalqada dawada sida aad rabtay ama wixii aad rabtay inuu ku noqon kulli ninkan xanuunku ka qabta qalliinka gurigiisa markuu aadashay kadib xanuunkii uu soo wactamay waxa la yiri daawo buu rabay daawo ama la cunayo ama qalliin kale in lagu sameeyo yani xanuun baa ahaay dhabarkii iga daaweeyay dhakhtarkii buu soo wacay kulli daawadu rabay muu helin baa dhahay in badan sheekada wali investigation baa lagu wadaa ma dhameystirno laakiin waxa la yiri in badan buu taleefanka soo wacay taleefanka lagama qabanin dhakhtarka waxa uu sameeyay go'aansaday in uu dhakhtarkii qalliinka ku sameeyay uu dilo dhakhtarkii inuu ka taqaluso waxa uu sameeyay warqad ayuu qoray waxa la yiri 2 saac ka hor miyaa isla same time uu sameeynayo dilka ka hor ay wuxuu soo gatay qoriga AR-15 waa kii cunuga maanta dhawey uu ku gumaaday ardayda oo kale buu soo gatay warqad buu qoray wuxuu qoray sida uu sheekada u sameeyay iyo sababta u sameeyay wuxuu sheegay inuu dhakhtarkan dilayo qof kasta oo inuu dhakhtarkaas dilo ka hor istaagana uu dili doono warqad buu qoray waaw baxay isbitaalkii buu tagay Oklahoma waay isbitaalkii buu tagay qalliinka ku sameeyay dhakhtarkii buu raasiday receptionistidii fadhiday albaabka u fadhiday buu dilay asagii buu dilay laba dhakhtar oo kale dilay balaas patient uu dilay madar dhakhtarkii qof uu arkay oo u balansanaa meesha ku jiro patientka wuxuu ku dayay inuu ka celiyo I don't know qof kasto warqad wuxuu ku qoray qof kasto iga hor istaaga inaan Dr. Phillips Phillips inaan soo dilo qof kasto iga hor istaaga asna waa waxaysi marka wuxuu firay qofka xafiiska u fadhiyay laba dhakhtar iyo asagi iyo patient afartaas isku tir ma hal dhakhtar oo kale waa laba dhakhtar iyo qof patient iyo qofkii aad fadhiyay afartaas markuu intooda ka wada taqalusiya asagina uu istir markii la baaray ilaa hadda baaritaan saacad ugu socda waxa la soo ogaaday ninka inuu ugu talagalaba maanta ugu horeys waxba shuurin baa dhaca shuurin baa iska laakiin markii ninkii de qof markuu wax dilo gurigiisa la aada waa la baara asagana barti buu isku diray maba is dhaafin meeshuu isku diray waxa la dhahay markii la baaro warqadaas laga helay waa la ogaaday reasonka uu diray laakiin waxa la rabaa in la sii ogaado waxa uu rabay uu ka cabanayay in laga daaweeyo bas waxa laga yaabaa dhakhtarka qofka intuu wax ku sameeyay qalliin ku sameeyay daas uu now the best qalliinka uu yahay wax kale qofka soo baahan daawo u baahan wax kasto uu awoodiis uu sii in qofkan lagu dhaa intaan ka badax walagu ma qaban karo ama xanuunkan kaama tagay jis daawo qaado so waxa la rabaa daawada uu raadinayo nooca ay tahay horta in la soo ogaado waa mucjiso hatta aan la hadlayo mid aan dhacday hatta ajarka aan duubay kan kuma kaafir garan doono mid ayaa dhacday oo in sheeg doona sababta ku dhacay tanziih ka dhacay midaan kalena waxa waaye ninka hadda saas markuu uga taqalusay dhakhtarkii sheekadiisa inay finish gareeyay waxa la baarayaa daawada uu raadinayo nooca dhakhtarka ugu dhintay daawada uu raadinayo ninkan oo la dilay sababta marka yaa waa mucjiso hadiiba waxaan la yaabay koob shaah inuu noqdo in iska soo gata qoriga in la iska soo gato koob shaah
oo aad Starbucks ka dalbanayso qoriga noqdo waxa la 2 hour ka hor before uu dilay 2 hour ka hor soo qaatay qoriga soo qaatay waa macjis kulay dawladdu waxay ka qabanaysaa iyada sheegi doonta sidoo kale nin ayaa waxa la sameeyay killer buu ahaa serial killer ku jira waxa la qofkii afraad ma yahay camal waxa la sameeyay taxi ka dhacda iyadana ayaanta sheekada taxi ku socota ilaahay nagu ma keeno ayakana Allah ka jooji waxa la nin baaxad wacay serial killer ah oo 2 life sentence serve gareynay waa dhimanay waa sheekada yaa ama shaana ku dhimanay ayaa waxa la sameeyay waxa la damacay inta laga wareejiyo meel xabsi ah in xabsi kale la geeyo baabuurkii baska intuu ku sii dhex jiray ayuu wixii ku xirnaa intuu iska furay oo ka escape gareeyay oo ninkii darawalka u tagay kulli baabuurta markii uu dhex maray baabuurta xabsiyada lagu waxay gauge wax la yiraahdo sas u ah oo nagu celiyo qofka iyo darawalka kulli uu ka dhex baxay darawalkii gacanta ka dhaawacay banaanka u baxay darawalku ka dhaca baabuurku ka tagaa soo markii la dhaca gacan ka dhaawacay ninkan hadda waa inuu carab haddana intuu soo noqdo gaarigii galay ayuu damca gaarigii inuu la carab nin min dadkii security-ka asiga la socdaa oo asna digay ay xabad qaatay gaarigii lugaha barrac uu joojiyay yani gaarigii la carabay wuu digay jiqda ku dhex orda serial killer waa carab inuu la baxamal rabin ma qaal raadinay maalmaha dhan raadinay wuu cararay cid buu gurigood kulay meel ay dad oday iyo afar saddexdiis wiil uu awoowo yahay oo meel dalxiis ku joogo meel ku jiray guri ku jiray ayuu dalaq u dhahay gaarigoodii hadhow la arki doonaa ayay soo dilay horta wax dhex mara lama garanay guriga ugu galay saddexdii wiil iyo awoogoodii kaawbu kaga sii soo dadka hadda cadaanka waxay sameeyaan baaburkooda qaataan meel dalxiisaan meel bay jirtaan meelaha jiqjiqtay meel bay dalxiis u aadaan kulli aabaha lama sheegay awoowaha iyo wiilashiisu hadda ay wiilka mid kamid ah 18 graduate garay iskuulkii la xiray meel bay isku raacay gaarigoodii oo track ah banaanka taagay buu qaatay kadhow odagii musayga haayo de awoowihii baa cidiisii weysay booliiska u sheegeen meeshii uu joogay baa la tagay oo ku tilmaameen dii loo tagay odagii iyo saddexdiisii wiil waaba dhintay cidan ama cijisu soo hoytay waaba dhinteen gaarigu ninkii wal raadinay gaarigood inuu maqaayay waa la ogaaday inuu awsilar killerkii inuu helay bal cid mucjisada ku dhacday waxa la yiri wiilasha yarka mid high school hadda dhamay kulligood waxa la yiri ilmaha waxay ahaayeen wada eeyda keena family dan saddexdoodii wiil awoowahoodii community dan way baqracmeen because waxay ahaayeen dadka bini aadanka ugu wanaagsan oo la kulmo ilmahaas wiilashaas iyo awoogood dadka ugu wanaagsan adduunka la kulmo bay ahaayeen bale waa baqracmeen imagine aabihii iyo hooyadii saddexdii wiilay dadka qabeen ba dhinteen oo aabahoodiina ka raacay only nin xabsi daraagistaan oo dad soo diro oo fikaday kariya intaas aawixii hatta dii waa la helay hadii la helo xabsi la gariyo what's the point wuxuu tara dad u qarib marka ilaahay nagu kan dadka oo xabsiyada soo galay oo xabsiyada ka fikada waxay sameeyaan wixii hore loo haystay wax kale sii qasan wariyay kidaan dad bay diraan maalmahan hadda maxaa lagu leeyahay intaas waa meeqa case waa ilmihii ha iskuulka lagu baabiinay waa afartan la dilaay waa ninkan Oklahoma waa weekan bisiya Oklahoma hadda dhakhtarkii ku leenay hadda in la duubay Tennessee ka socota oo intaas oo qof 14 qof dhaawacay intaas qofna ay dhimatay marka baash way kacsanta ayaantan bil faataxada la isku maro ilaahay waxa soo kale nama soo gaarsiiyo insha Allah aad bad ma hasantihiin channel subscribe saar kala kiciya insha Allah markastana saa ii daawatino igu xirantihiin wad ku ma hasantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh